السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت كحرا أغانشو سوم كاست حلقة دي أغور ريسي ومحي سوم كاست محوسة كهل دونا مركا كوباد مقعان سوم كاست وحو كدقان هاي سومالي بودكاست مركان لنا هاي بودكاست أيان دقاي سنينة أما قف كان أو سوقد بنايا وإن لسو فريسيو أما أن كيني دونو قف kadibna aan weydiin doono wax uu yaqaan bodcastiga wuxuu uga duwan yahay waraysi qof lala yeeshay in qofkan si qoto dheer oo toos ah su'aalo dadka ay wax ka faa'iidayaan la weydiinayo labada qofka soo gudbinayo iyo qofka su'aalaha la weydiinayana ay u dhaxaysa arrin u eg laba qof oo maqaayad fadhido laba qof oo meel fadhido in sheekadoodu ay ahaato mid si marka loo fiiriyo aad uga fog waraysiga rasmiga ah ee su'aalaha inta badan diblomaasiga u badan maanta xalqadan ugu horeyso waxaa marti noo ah nin intiina badan dabcan ay yaqaanaan Salmaan Madow. Salmaan Ibrahim Madow wuxuu waxbarashadiisa sare ku qaatay dalka Suudaan. waxbarashada sare waxaan ka hadlaynaa heerka jaamacadeed wuxuu master degree ka haystaa kulliyadda applied science ama al-culuum at-tadbiiqiya culuumta tadbiiqiga sidoo kale wuxuu master ka haystaa cilmiga kombiyuutarka sidoo kale wuxuu shahaadada takhasuska graphic designinka oo ah wax inta badan maanta Salmaan Madow dadka yaqaano ay ku yaqaanaan graphic designskaas macadka California ee funuunta ayuu ka qaatay graphic designkaas sidoo kale muuqaal samaynta ayuu ka bartay macadka Al-Jazeera wuxuu hadda yahay waqtigan muxaadir jaamacadeed jaamacadda Jazeera iyo jaamacadda ummadda ee ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan kulliyadda saxaafadda wuxuuna dhigaa maadooyinka sawir qaadida iyo muuqaal samaynta video production waana waxa aan maanta ka hadlayno muuqaalkan aan uga hadlayno xalaqadan koobaad ee podcastigan waana soo saaraha iyo naqshadeeyaha majalada jaamacadda ummadda Soomaaliyeed wuxuu leeyahay website uu koorsooyin ku bixiyo waan ogaan doonaa inta aan xalaqadan ku guda jirno waxa uu yahay websitekaas Ustaad Salmaan Madow ku soo dhawow xalaqadii ugu horeysay Somcast sidoo kale waan ku soo dhaweynayaa runtii waana ku faraxsanahay in aad marti noogu tahay xalaqadii ugu horeysay ee barnaamijkan Somcast ama podcastigan haddaan si toos ah u galno barnaamijkan muddo ayaad ka maqnayd YouTube-ka waa su'aasha ugu horeyso adoo maxay tahay sababta aad YouTube-ka uga maqnayd dabcan duruus ayaad bixin jirtay waxyaabo dadku ay aad u jecel yihiin ayaad kanaalkaada ku soo gudbin jirtay Salmaan Madow ama ma taqaanaa ma waxaad ku maqnayd maalan tusaale ahaan mashaariic kale soo laabashadan aad soo laabatay ood hadda YouTube ka soo laabatay maxay ka dhigan tahay waa maxay afkaarta cusub ee aad la soo laabatay okay waa mahadsantahay Ustaad Cumar haddaan laabto marka su'aashaada haddaan ku soo laabto qaab aan horta waa iska dareemi kartaa qof mar hadduu wadankiisa uu ku soo laabto iska mashquul badan ayuu noqonayaa waagii hore markaan YouTube-kan bilaabay waxaan joogay wadanka dibadiisa aan joogay sidaas marka firaaqooyin badan aan heli jiray oo family iyo usro iyo waxaas dhan makaa aab dhawaanayaan oo adiga kaliya waayo iska bulataay sidaa rabta markaas u shaqeyn kartaa laakiin wadankii markaan ku soo laabtay waxyaabo far badan isbedelay shaqooyin ku soo bixi sidoo kale family iyo waxaas ku soo baxay marka midaas kugu kaleefeys wax xir dib inay u dhacdo marka saas ay tahay waxaan ku dadaalay markaas shaqadaasna inaan dib aan u dhigin waxaan bilaabo markaas badanaa waxaan sameeyay ardaydii oo markaas koorsooyinkii aan dhigay ama casharadaan dhigay ayaan fiiriyay qaabka qoraaladooda iyo waxaas commentiyada soo dhigay marka maalina waxaa dhici karta ilaa 2 arday ayaan arkay oo i weydiinayo markaas koorsadii aad dhigtay ama aad soo dhigtay waan dhigtay maxaa macallin ma isiin kartaa shahaado marka meeshaas aan ka fikiray marka sidee aan ku ogaan karaa isdahay ardaygan inuu wixii dhigtay ama inuu wili waxay aan uusan dhiganin marka midaas aan fikiray marka fikir kadib waxaan sameeyay marka hadda system aan sameeyay oo markaasi ardaydii aan ku ogaan kara ardayga 10 dhigtay 10ka wili aan midkaan dhiganin oo ah website-ka aan sameeyay oo Afogi la dhaho marka website-kaas waxaa ku ogaan kartaa ardaygaas ma kula socdaa casharadaada kulli ma dhigtaa wili ma dhigtinin sidii waxyaabo far badan ka ogaan kartaa sidoo kale koorsooyinka markaas aad bixinaysid
waa ku habeyn kartaa kasoo qaad job trace aa sameyne job trace markaa sameysa unity haddaa artaa u sameyn kartaa sidoo kale haddaa waxaa sameyn kartaa sidoo kale kubisyaa sameyn kartaa oo ardayga weydiinaysid iyo assignmentiyo markaasi ardaygaas aa u diraysid marka halahaas dhan markaan mashquulkaas badan uu jira markaas tan maxaa markaa tan aa ku mashquulsan tahay sidoo kalena howlo fara badan oo family uu ku haysto dib ay u dhigmay markaas shaqadii markaasi youtube-kii ka haysa marka hadda waxaan ogaaday marka wixii inaan isku soo habay sidoo kalena arday badan codsiyo badan ay badan ay soo gudbiyeen inaan casharada youtube-kan aan kusoo laabto iyadana aan joojinin saasa markii aan mar kale ugu soo rogaal celiyo markaan sidii hore waxa uu bixinayn waxaan ku dadaalay inaan ka duwanaasiyo ama ay ka duwanaato kasoo qaad waxaan rabaa markii hore wixii aad kaliya cod ahaan ayaan kusoo duugi jiray oo markaan waxaan rabaa markaan interaction in qofka uu naga qaado tafaacul ila sameeyo ardayga markaas casharkeeda qaadanaya aniga markuu jigeeda toos inuu arko iyo sidoo kalena casharadeeda kaliya waxay ku saabsanaan jireen dhanka tiknoolajiyada marka dhankan tiknoolajiyada markaan waan ka daayay oo dhanka ma ka daanin aan dhihina tiknoolajiyadan way jirtaa sidoo kale ziyaadaan sameeyo oo ah dhankan sayniska oo iyadana sidoo kale aan takhasus aan u leeyahay markaasi oo dhankan physicska iyo mathka ardayga markaas inaan sii kordhiyo iyo macluumaad fara badan sidoo kale educational technology-gan marka inaan sii ziyaado wixii ziyaadiskii ayaan markaan aan ku dadaali doonaa insha allah maasha allah si fiican fikradda website-ka waxaad moodaa inay tahay thawri ama kacdoon inta badan soomaalida in ay fikraddan aanan hore lagu aqoonin website koorsooyin lagu bixinay runtii waa tallaabo horumar leh oo la taaban karo waxaan horyaala su-aalo badan oo ku saabsan editingka waxaan u gelaynaa si tartiib ah su-aalo khafiifa kadibna si aan u galno su-aalaha ugu muhiimsan laakiin inta aanan gelin su-aalaha kale waxaad caan ku tahay ustaad salmaan motion graphicska gaar ahaan barnaamijka after effectiga tijaabadaada adiga ka shakhsi ahaan ka salmaan ahaan noo sheeg si dadka dabcan la dhegaysanaya ay uga faa'iidaan in qofka dhalinyarada ee barnaamijkan dhegaysanayo uu u raaco tallaabadii uu raacay master salmaan si uu u barto after effectiga ama motion graphicskaas noo sheeg tijaabadaada gaarka ku aadan barnaamijyadan sax waa mahadsan tahay horta dhankan oo badanaa qaabka online ku barashada badanaa horta waddankeena waa ku cusub tahay oo Soomaali ahaan hadaan u fiirin qof inuu online wax ku barto wax weyn la ila tahay sidee aan qof aan arkayna wax ku barana dad qaar kood sidaas ku weydiinayaan laakiin saafilay markii darad mushkiladii hadda dhacday oo cudurkiina soo galay caabuqii corona ahaay wax badan dadka fikradii isbedelay waxaan ogaadeen in la baran karo qofka online wax ku baran karo hadda alxamdulillah markii mushkiladaas ay dhacday hadda waxaan ku guuleystay ilaa ku dhawaad 200 arday inaan ku tababaro systemkii markaas aan sameeyay ama website-kii afoogi inay koorsooyinkii ku qaateen hadda darad dhibid imtixaankiisa ay galeen marka faa'iido badan oo noolaha hadda markaan corona kala xirnaashii wadanka markaas u dhacay arday dad badan ah ogaadeen in online hadda wax lagu baran karo hadda mustaqbalka waxa dhici karto macallin waa maqnaad la dhahay inaysan jiri doonin macallin walba meeshuu joogo markaas uu aaday hadda sariirtiisa soo joogo inuu ardayda uu 10 siin karo marka adaarto markaas barnaamij ina barid ka soo qaadada after effects kan hadda aan sheegeen laazim waxa way طريقooyin ina sameeysid waa adaarto markaas ina waxaas abarid horta marka koowaad waxaas adabaranaysid hadin waxaas rabaa inaan barto kaliilay kugu ekaanin isla markaa adaarto waxaas ina barid toos ina u baratid waa oo ah waqti si macna waqti oo markaas waqtigaada kamid ah ina siisid waa sidoo kale waxa mid labaad markaas aan ku talinayo qofka markaas dooro barnaamijkaasi inuu barto koorsooyin inuu raadiyo oo dhameystiran dad qaar kood marka mashaakilka ka imaanaysa waxay in 10 dhiganaa oo kala tafaraaruq ah oo ah marka 10daas waxaan kula talin lahaa oo kale qofka koorsooyin dhameystiran jirto oo basic ah oo la siinayo qofka toolska koodi lagu bara laakiin dadku iska degdeg badan yihiin qaab tools aan hadii waxa uu baranayaan miska jeclo waxay rabaan wax degdeg ah ilaan hal mar inuu 10 qabsado oo 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo ah oo markaas nin soo booda oo kala qarax dhacay waxyaabaas inuu hore ka sameeyo jecel yahay asigoo ka tagay waxyaabihii kale ka muhiimka ah toolska waxaas lagu sameeyo inuu barto marka guud ahaan aniga waxaan ku talin lahaa qofka markaas duuro waxaas inuu barto toolsyada koodi basic course inuu raadiyo oo dhameystiran oo midaasna waxa mid aniga hadda aan ku dadaalayo oo markaas aan website-kii hadda aan sameeyay oo ah wixii inuu barto barnaamijkaas markaas waxaas lagu sameeyo toolsyada meesha ku yaalaan midkaan muxuu qabana midkaas kale muxuu qabana sidaas inuu qofka wax markaas u barto
marka midda kaleenta waxaa waaye markaa adiga casharkaas aad baranaysidna ha iska fiirsanin dad qaarkood casharkii iska fiirsanaa wax ma fahmayo ku dhahaa marka waxaa waaye kombiyuutarkaada soo qabso casharkiina kuu shidnaado casharkana fiiri kadibna haddana isla markii tatbiiqi samee halkaas marka casharka aad fiirinaysid kadib aad samaynaysid casharka aad fiirinaysid aad samaynaysid kadib waxaa sameynaya mar labaad hadan ku celi casharkaas marka labaad laakiin markaan waxaa fiirsanin oo toos casharkii u tatbiiqi taasna waxaa waaye dariiqada kaleenta oo saddexaad markaasi aan ku talinaya haddii barnaamijyadan after effects iyo kulli barnaamijyadaas kaleenta daarabti markaasi inaa baratid midda kalena ha ordin badanaa ordka iska daa midii haddaan kusoo sheegi waaye qofka inuu mar walba cashar uu bilaabo ama koors uu bilaabo koorsadii iyadoo dhammaan kor dhexda ku kala goona ama darsiguu wadaa oo 10 daqiiq iyadoo dhammaan dan koo kale uu boodaa midkii asoo itqaaninin ama asoo si fiican wax badan ugu helin marka hal mid aa kaaga ron intaa wax badan aa qabsan leed ama koorsooyin badan aa qabsan leed ama casharo badan aa qaadan leed hal mid aad si fiican u fahanteed aa kaaga ron waxaa dhici karta halkaas mid kaliya halka tool inaa ka baratay isla toolkaas si un in wax loo isticmaalayo qaab kale oo ka gedisan ama si un loo isticmaalayo marka toolkaas halkaas tool aa baranaysa si fiican oo itqaani midaasaan dhahlahay midda kale weyn aan kusii talin lahay qofka barnaamijyadan duuro markaas inuu barto caajis badanaa ku imaan doono oo adaarid barnaamijyadan kulli isla qabsatiin caajiska iska daa mar walba nin hami leh ujeedo leh iska dhig oo waxaa rabaa markaas inaan barto ku taagnaa waxaada ilaa ujeedadaas aad gaartidna gadaal ha u laabanin taas waa marka midda waxyaabahaas oo muhiimka ah haddaa rabtid barnaamijyadan kulli inaa itqaanisid kulli isla fahantid taasaa muhiim ah taasaan ku talin lahaane iyo qofka waxaas inuu sameeyo waxaan filayaa in xiriir uu ka dhexeeyo maalan qofkan inuu waxaan jecel yahay haddaanan qaldanin waxaan u malayn markii hore ka hiwaaye ahaan inaad markaad baranaysa aad u bilowday oo aad jeclayd marka ma la dhihi karaa qofka hadduu shaygan jecel yahay si degdeg ayuu u baran karaa saxiix midaas waa mid saxsan waay hadda badanaa dad badanaa jirto hadda dad qaarkood waxaa waaye hadda jaamacadahan oo kale sheekooyin qaarkood lagaa sheekeyna waxay yihiin dad qaarkood markii jaamacad dhiganayaan oo kale ama kuliyadda duurow markaas inuu galo ama wax cun inuu barto waxaasi ima faamil aan uu ku xiriirsan yahay ama ima wax cun inuu ku xiriirsan yahay dad qaarkood wixii ma jeclo qofka wax hadduu markaas uusan jeclayn waa adagtaas wixii ibdaac uu sameeyo sidoo kale uu hal abuur u noqdo laakiin qofka markaas wuxuu jecel yahay qofkaas hadduu helo waxaasuu markaas hal abuur ku sameyn karaa marka aad wax walba markaas isjeclaysi haddaa isjeclaysiiso waxaan kuu hubaa waxaas markaas inaa wax cun aa kasoo saari kartid ama wax cun inaa ibdaacin kartid marka midii kaleentan horan usii qabso haddaa waxaas aad jeceshahay dheel waxaan iska imaanaya waxa oo toos adoo iska jiiftid oo kale wixii waa jecla inaa bartaa ma ahan inaa bartaan rabaa saas hore ma kaaga imaanayo laazim waqti inaa u hurtid waay juhdi inaa u bixisid waay oo waxyaabo fara badan inaad joogto ana hadda oo kale haddaan waxyar iska sheekay dhankan oo markaa barnaamijyadan baranayo waxaa dhici karta 3 saac haweenkii kaliya inaa seexan jir ama 4 saac marka qaarkood inaa seexan jir saa wax cun u gaara ama koorso un inaa u dhameeyo ama wax cun muwaan waxa iska imaanaya ma ahan barnaamijyadan daarт markaas inaa sameys waqti bixi taas waa mar walba aan kugu socon waqti bixi caajis iska daa sidaas horumar ku gaali kartaa runtii aniga xataa tijaabada aan tijaabiyay gaar ahaan youtube-ka aan arkay waxaa laga yaabaa qof maalan markuu kanaal youtube samaysanayo inuu qofkan u furto keliya lacag ka hel inuu is yidhahdo kanaal youtube aan samaysanayaa kadibna si aan lacag oga helo haddaba qofkan haddii uuna waxaan ayna shaqafka ahayn uuna jeclayn waxaa adag in uu guul ka gaaro dhinaca youtube-ka sababtoo ah youtube-ka sanadka ugu horeeya oo kale ama xitaa 2 sano waxaa laga yaabaa qofka in ayna riyaal kaa soo gelin inaad adi un lacag ku bixinayso qalab soo gado marka dhalinyarada na dhegeysanaysa waa muhiim waxaan aad baranaysa inaad jeceshahay waxa hadba aad yani niyad ahaan jeceshahay in aad barato way kuu sahlan tahay su-aasha kale ustaad salmaan inta badan dhalinyarada rag iyo dumar raba inay bartaan barnaamijyada wax lagu bedelo fiidyada lagu bedelo inta badan waxaa iskaga qasan barnaamijyada magacyadooda ama qofka waxa laga yaabaa inuu su'aalo badan isweydiiyo ama uu ku wareero keen bartaa ma waxaan bartaa after effect ma Sony Vegas baan bartaa ma waxaan bartaa Adobe Premiere Filmora Camtasia marka farqiyada u dhaxeeyo barnaamijyadan ama qofka bilaabayo kale su'aasha soo imaan doona barnaamijyadan dhowr daqiiqo ma nagu kala sheegi kartaa waxa ay yihiin after effect-ga wuxuu yahay Adobe Premiere-ka Sony Vegas-ka waxa ay yihiin mikrofon ku soo dhow mar kale صح
waa mahadsantahay ustaad cumar. Intaanan sii tegin micnaha midaan kale intaan rabaa inaan sii raacsiyo dhow si qofka uu ila fahmo waxaa ka hadlaysa midaas ah dhankan youtube aniga ahaan hadda ku dhawaad waxaan haystaa 22,000 oo dad ka qayb galaya website-keeda meeshaan aan dhaha youtube-keeda ilaa haddan ani $1 ma ka sameynin ama ma u isku taxaluujin $1 keliya waxaa waaye waxaan gudbiyaa waxa aniga aan jeclahay oo markaas waxaa farxadii ah mataqaana hal qof inuu i dhaho wixii waa ka faa'iido waxaad dhigatay mooy muhiimadeedu weyn markaas lacag inaa helo sidii saas badana dadka hadda youtube wuxuu ku dhaha lacag si ugu sameeya su-aashkood uu ku weydiinaya sidaasay noqoneen marka muhiimadaada iyo noqoneen haddaad tahay gabar haddaad cunto karis jeceshahay dadka saa u gudbin lahayd oo kale taas lay ka fikir lacagta kadib ida wax walba imaanaya waxaad dhici karta haddaa adoo youtube lacag ka sugayso qof kale inuu kuu wacdo oo ku dhaho kaal cuntadaas iyo kale cuntadaasaa u baahannahay inuu ku dhaho taasaa dhici karto sidoo kale dad qaarkooda waxay ku dhahayaan maxaa la ii shahaadina hadduu qofku wiil yahay wuxuu markaas jecel yahay iska samee lacag dhan ha ka fikirin dhanka lacag iska dhiin iska lacag ma iska imaanaysa ade lacagta si un ay ku imaanayaan oo midaas ay gudbo dhankan kale daa u gudbo su'aalahan horta sax waaye badan horta Soomaalideena waxaa jirto waa isku khasnaa qaabiyad wax u jiraan oo dhankan oo barnaamijtan dad qaarkood marka barnaamijtiyan rabaa hadda inaan kala saaro qaabkiin horta waxaa jirto dhowr takhasusaa jirto oo barnaamijyadan dhankan design ama dhankan film sameynta ama sawir sameynta markaa soo gashid kala bixisaa jirto waxyaabo kala babax ah horta haddaad dhahdid graphic designer aan rabaa inaan noqdo waxaa jirta barnaamijyo gooni ah oo baranaysa kasoo qaad waxaan rabaa inaad dhahdid qof oo video editing aan rabaa inaan noqdo ama wax soo saaraan rabaa producer inaan noqdo aan rabaa asina wax barnaamij gooni loo baranaa jirto kasoo qaad waxaan dhahdid motion graphic aan rabaa inaan noqdo asin barnaamij gooni ah jirto markaas la baranaa yalla graphic design kan ku soo laab graphic design ka hadaarto markaas graphic designer aan rabaa inaan noqdo hadda jecesha horta waxaa waaye maxaan ka wadnaa graphic designer inaa su'aashaas isweydiisid waa kelimada leena soo qaadid haddaad ma ansaas rabaa horta graphic design waxaa waa qof markaas qabanayo waxyaabaha la daadaawacayo logooyinka sameynayo sidoo kale boorarkan oo laamiyada ku tegan oo sidoo kale buwaagtan la daawacayo waxaas dhan waxay soo galayaan barnaamijkaas oo graphic design soo galaan badanaan waxaa isticmaal wakaaladahan oo wax daadaawac oo jadkan oo aragtiin oo wax daawacayo ee broshuriska marka waxaan dhigana markaan graphic design ka hadis maxaa u baahan tahay barnaamijyada baranaysid waxaa u baahan tahay inaad baratid photoshop sidoo kale waxaa u baahan tahay inaad baratid illustrator sidoo kale waxaa u baahan tahay InDesign muxuu yahay marka photoshopka sawirada markaas ku edit gareene macnaha logo rabaa inaan sameeyo photoshop aan logo ku sameeyna taas ma jirto qalad waa macnaha photoshopka logo ma lagu sameeyo laakiin illustrator hadaa markaas ka hadlayo illustratorka oo kale logooyinka lagu sameeyaa sidoo kale hada mawduucdan waa balaarin hadaa pixel waxaan photoshopka waxaan dhahnaa markaas pixel allah qaab pixel ama wixii markaas mar walba weynaysiisid jawdadiis weyn usqaami ama quality-ga usqaama ama laakiin illustratorka hadaa ka hadlayo waa vector anaka vector waxa mar walba weynaysid jawdadii mabaanaysid badana daawacitaanka waxyaabo la daawacayo waxyaabo boorar waxa arkay markaa kood intaasoo mitir ah oo computerka waxa ku sameynaysa ka weyn markaas illustratorka u baahan tahay InDesign-kan waxaa waaye buwaagtan oo kale broshureskan waxyaabahaas ayaa lagu sameeyaa si u qaasiya dhankaas meel aan iska dhigno marka su-aasha kale su-aashan waa iska soo geliya lacal haddii ardayga oo qofka markaas rabo inuu fahmo inuusan iskaga qasmin dhankan haddaan usoo laabto oo editingka barnaamijyada horta waa kala badan yihiin hadba sidaa adi wax u rabtid waa ama wax ma rabtaa professional inaad noqoto telefishin aad ka shaqaysid ama waxyaabo badan inaad samaysid projectyo waaweyn inaad samaysid ma u baahan tahay barnaamij gooni leedahay haddaad dhahayd qof dhexaan rabaa kaliya filim inaan soo saara rabaa oo iska youtube-kii iyo barnaamijyadan kale oo barnaamij iska dhexdhexe barnaamij u gooni leedahay ama laakiin haddaad dhahays kaliya waxaan rabaa familigii maanta liida aadni wixii oo ama waxaa aadnay meel xeeb hebele ama meel hebelo aadni kaliya filimaantii wixii ama sawiradii ciid markaas inaan isku rakibaa rabaa asin barnaamij gooni leeyahay waa qof iska beginner ah marka aan soo laabto barnaamijyada mid walba mid ku galaya professional rabaa dhahday professional haddii aragtid markaas inaan noqdo telefishinada waxyaabaan meesha ka shaqeynayaan waxaa u baahan tahay barnaamijkan Adobe Premiere Pro u baahan tahay asaa macnaha professional macnaha color grading uu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay motion markaa ku daw ku sameyn kartaa oo lower 30 waxyaabihi oo markaas u baahan tahay iyo sidoo kale waxaa soo raacayo Final Cut Pro soo raacayo oo laakiin barnaamijyadan oo Mac ah oo u khaasiya ama laakiin haddaan dho barnaamijyada dhexe
aa u baahan tahay markaas film hadda video kaliya inaad samaysid aa u baahan tahay iyo muuqaalada kaliya wax kale si ziyaada marabtid waxaada kugu filan inaad samaysid waxaan ku talin lahaa barnaamijyadan oo dhexe Sony Vegas waay sidoo kale waxaan kusii talin lahaa Hit Film Express oo course aan ka sameeyo jirto YouTube-ka ku jirto channelkeeda sidoo kale waxaa jirto EDS waa jirto sidoo kale waxaa jirto Filmora naftirkiisa aan ahaan waxaan ku talin lahaa kuwa dhex ma ku talin lahayn waxaan ku talin lahaa kuwa iska beginnerka ah hoose ma dhex karo laakiin dad isticmaalo ilaan wixiisna waa diyaarsan yihiin kaliya isaar waay horena wixii aan isku qabto marka midkan hoose aan usoo laabto barnaamijyada iyadana gooni ah jirto oo markaas dadkan dhibka aan rabin wax leen isku dhejiyaan rabaan dadkaas waxaan ku talin lahaa midkan Premiere Elements aa jirto ma la dhahaa Adobe Premiere Elements mid laha jirto sidoo kale waxaa jiro barnaamij kale oo Filmorahan uu soo dhaxgalayaa iyo dhowr barnaamij kale inta jirto marka laazim inaad sidaas ogaatid waa yalla dhankan kale aan usoo laabto oo motion graphic After Effects-ka haddaa dhaad video editing aan noqona oo film ama muuqaal aan soo duubtay aan ku jarjara After Effects waxaas macnaha ma heli kartid toolska aan ku jarjara leed macnaha ma loogu targelin shaqadiis maan After Effects hadaa maqli After Effects waxa lagu qabto waxa waaye macnaha sawiradan motionka animationka sameynta sidoo kale markaa kood character si ziyaada ma aan kaliya bologniska jirto oo markaas idaafaad markaas lagu kordhinayo jirto oo si ziyaadinaya kaliya oo character ay ku sameyn jirto laakiin characterka wuxuu leeyahay isna shirkadan Adobe barnaamij oo gooni u soo saarta jirto Adobe character ay dhahayna jirto midaasna inaad sidaas u barato waa daarta lacala character animation aan sameynaa dheesid After Effects naftirkiisa ziyaada ma ku aan sameyntiis laakiin ku sameyn kartaa laakiin ability badan ma u leedid inaad sidii oo barnaamijkaas kale characterka ma u sameyn kartid sidoo kale waxaan rabaa sidoo waxyaabahan soo dhacay jajabayo visual effects-ka Allah oo qarax dhacayo asqarax la afkii ku haya marka waxyaabahan iska actionka filmaanta actionka markii la sameynayo waxyaabahaas waxa badan adeegsata filmada wax lagu sameeyo barnaamijyadaas waxaa asina After Effects barnay marka adi iyo Joyce-ka markaas leedahay maxaa rabtaa inaad baratid sidee wax u rabtaa wax ma rabtaa muuqaal inaad edit gareys motion ma rabtaa adii waxa le ma rabtaa designadan buwagta inaad samaysid sida hadda marka kuula kala bixi ina u fahamtid waa si iskaga qasmin naftirkiisa daasii gashid هذا سيجا شيء عندنا تخصصات ولا كسوقات فيت فوتوشوب كليان كهذا دان كله ما ياخذ تخصص ولا اسم نفترض سوا بدنته كسوقات فوتوشوب عليها فوتو مانيبيوليشن وحلا جرت تصوير لو اسكو دردره oo wax un laga soo saaray fikrad sidoo kale waxay leedahay takhasus kale retouching ay leedahay oo photographer kan ay adeegstaan ka soo qaad qofka fifina ku yaalo waxyaabo ku yaalo markii wajigiisa la nadiifina waxa isticmaala badanaa dadkan oo wax sawir ay sheeg footooyinka saas bare qofka si wajigiisa arka soo wajigaas si una galay si una soo baxa si qurux dadkaas ay isticmaal marka takhasus badan waay adi marka xadidnaa waa isku dhaxyaacin wax xadido point lahaa kadib wixii asaga ku kala furmay laakiin daadada inta halkan darsiga soo qabsana inta halkan darsiga soo qabsana wiliga saas la u jaawareere wax ma ku toosaa haddaan raacino su'aal yar oo ah la xiriirto ma sha Allah sharx fiicnaad hadda bixisay si kooban qofka hadda bilaabi raba مثلا qof baan dhageysanayo wuxuu rabaa inuu kanaal YouTube bilaabo ama xitaa si kalaba say ahaataba majaalkan ayuu rabaa inuu galo video bedelka iyo editing waxaan adaba taladaada barnaamijka fiican inuu ku bilaabo marka hore ma barnaamijyada waaweyn mase waxaad kula talinaysaa inuu ku bilaabo kuwa hoose kadibna uu tallaabo u sii qaado okay ani ahaan waxaan ku talin lahaa qof hadduu markaas editing ma qaybtan editing meelaha kala maarmaano editing haddaan ka hadlayna qaybtaasi kaliya waxaan ku talin lahaa barnaamij hoose inuu ka bilaabo ilaa mar walba barnaamijka aweenis mar walba waxa waay oo computer weyn oo baahnaanta oo u baahatid waa kasoo qaada Adobe Premiere ay computerka lacal markaa kood mashaakil badan markaa kood ka hor imaanaysa sidaas waay adiga hal barnaamij hadaa barato waxaan waa barnaamijyada kala dhan inay ku fududaan doonaan marka midka hoose badan ka bilaab kadib kuwa kala dhan waa ku fududaanayaan ani ahaan waxaan ka bilaaway oo ma aqaan mar hadaa xasuusatid movie maker ma xasuustaa barnaamijyada oo Windows ku imaan jiray oo movie maker la dhahay jiray sida marka ani kaasan ku bilaabo marka badanaa kaas daafaantid isku wixii waa isku marka wax weyn ma aan dad qaarkood meel weyn isgeena kadib soo dhacayaan marka aad meel weyn ha aadin badanaa marka tartiibkaad u bilaabo ya hadba xaaladaada halay tahay hadaa mid bilaawid ana waxaan waa dhankan video editingka mid un hadaa bilaawid mid kuwa kale dhan isku mid yihiin oo bis halay terminology bis la isticmaala midka inta ku aragtid midkaas kale ku aragtid bis waxyaabo kale inta oo ziyaado ah
un inaa heshida dhici karto marka ma kaaga baahno wax weyn inaa ka bilaawd markaas. Mm. Een, si fiican su-aashan kale ama isweydiintan si marka loo yaro fiiriyo way ka fog tahay dhinaca editinka, waxay xiriir leedahay shaqooyinka horta ah iyo mashaariicda shakhsiga ah. baryahan yacni caalamka si guud ahaaneed sanadadii u dambeeyey waxaa ku soo badanaya shaqooyinka horta ah, in xitaa shirkado waaweyn sida Google, Apple oo kale ay dhaheen waxaan xoogga saaraynaa mahaarada qofka uu leeyahay, skillska uu leeyahay. oo laba qof oo maalan shaqadoon hadday noo imaadaan ma fiirinayno keeba shahaado wato, ee waxaan fiirinaynaa keeba waxaan yaqaan, taasoo qadarin qofkan waxa uu isbaray. maalin dhowna aqalka cad wuxuu soo saaray sida uu Trump sheegay in Maraykanku uuna shahaado ku xiraynin qofkii shaqo doonayo ama qofkii maalan shaqooyinka sarsare shahaadooyinka looga baahnaa ayna qasab ahayn qofkan in uu shahaado wato, ee ay qasab tahay inuu qofkan waxaan yaqaan. haddaba adiga ka shakhsi ahaan sideed u aragtaa mustaqbalka shaqooyinka horta ah, dhallinyarada maanta, arrimo noocaas? wallahi horta hadda fursad weyn ay u tahay maxaa la isha qof walbo inuu hal skill inuu lahaado ama mahaaro inuu sameeyo, ilan xaaladdu waa isbedelaysaa. hadda keliya waxa waaye hadda wadamadan hor Yurubta iyo kuwaan bas keliya waxaa la isku qiimeeyaa oo ama keliya qofka waxyaabaha oo shahaadada badan lagu xujeynayo waxay tahay waxyaabahan oo mushkiladaha geysan karo dhankan bini'aadanka qoseys ka soo qaad sida medicinka iyo caafimaadka. ilan qof adigoo basic badan haysanin oo laba soo barata wax dhigi karta qof noloshiisana khatar gelisid. iyo dhankan oo engineering naftirkiisa waxyaabaha qaarkood waxaa qofka asaa isbari karo. marka qofka adiga mar hore hadii la dhaha jiray wadankeeda shaqo mataal ama si ma yaalo ama wax ma samayn kari, markaan adiga mobile haysataa, sidoo kale computer haysataa, internet waa la haysataa. sida la sheegay waxyaabo wadanka Soomaaliya wuxuu kamid yahay wadamada oo markaasi oo internetkiisa oo iska raqiisan. marka waqti badan haysataa markaasi inaa skill aad samaysatid. skillkaas aad samaysanaysa mahaaradaas keliya lagu xujeynaa ma shahaado ma lagu xujeynaa, bas waxaa jirta wax portfolio lahay oo ah qofka markaas wax walba aad samaysatid meel gasho. hadhowdi qofkii wax kuu soo dir itusi ku dhihi karaa waxaan aad samaysa, hadhowdiis waxaad kugu doorta. hadda waxaan Google-kan iyo Apple-kan waxyaaba dhan hadda aad sidii hadda macluumadii aad sheegaysay macluumaas bas le waxaas waxaa lagu tusinaa waxaa hore u soo samaysay itusiyaa lagu dhahaa. waxaas la geliya qofka inaad tusisid waa. laakiin haddaa isku xujaysid mar walba hal meel haddaa taagnaatid aad dhahdid ma baran karo waxaan saa ma yeeli karo si ma yeeli karo, weligaad meeshaada taagnaane. markaad adduunyadu waa isku furmatay kulli hal waxa la noqono hal dhinac. waxaa dhici karta adoo Soomaali joogtada wax ka shaqayn kartaa meel kale. aniga kasoo qaata daraadeed oo kale mashruuc ama project aan qabtay markaasi aan dad kale u sameynay. qofkan ma isnaqaano isku luqad waa bas kaliya waxna kulmiya waxayeen barnaamijkan kaliya wuxuu ku dhahaa qofka uu ku weydiin karaa waxaas hore u soo sameysay tusi kadib wuxuu rabo markaas ayuu kugu xujeena. marka shaqadii aan qabnay kale meesha markaan ku lamaasan. marka midaasna waa muhiim ku tahay fursadaan skill cusub baro ama xirfad cusub baro hadhoodii sidii markaas hadda isku xujeen bay'ada markaas ama environment aad joogtid meel kale adduunyada ka shaqeysan kartaa oo ah markaas waxa baratay. marka ku dadaalan dhahlaa macnaha hadda dhalinyarada ama jiilkan soo baxayo sidaas inay sameeyaan intii si isku mashquulinin barnaamijyadan TikTok iyo barnaamijyadan badan oo waqti badan ka luminaya dadka. صحيح والله runtii mar haddaan ka hadlayno wax isbaridda intaan ogahay waxaa ta dadka aadka u taageero inay wax isbaraan, inuu qofku asaga wax isbaro. dabcan waxaa jiro websiteyo badan, Udemy maxay ahayd, Coursera, websiteyo aad u badan oo koorsooyin tayo sare leh lacag ahaanna aanan aad u qaali ahayn. websiteyadaas talow maxay yihiin qofka siduu wax isu bari kara? hadda maalan qofkii rabo kale inuu wax barto oo waxaad kula talin lahayd websiteyada lacagta uu bixinayo inuu aado mase kuwa freega xitaa YouTube-ka oo kale, qaabku wax isu bari karaa qofka? aniga qaab ahaan waxaan ku talin lahaa macnaha qofka hadduu markaas wax rabo inaa wax barisa daarabtid laazim wax inaad dhiibtid waa. ninkaas markaas waxaas ku barayo juhdi soo bixina wax bilaash ma jiro. hadda lacag badan ma ahan. aniga aan hadda markaan ku dhahay maxaa la ii sheeg aniga aan hadda website-keeda aan ka hadlo qaabka u shaqeynay qaabyadii kaleenta waa oo iska
horumarsanay oo YouTube kuwan Udemy-gan iyo sidii aan soo koobiyay waxay ku dhahaan mar qaarkood kaliya waxaan ka dhigay course walba markaas qofku uu dhigan karaa oo website ku jiro kaliya bishii kaliya wuxuu dhiibaa $4 dad qaarkood waxay ku dhahaan $4 badan tahay ku dhahaan oo free ma ka dhigtid sidii serviceka markaas oo website-ka markaas ileen waxaan server la soo ijaari waa sidoo kale maxaa leeyahay waqtiina wuu dhamaan doona marka waxaas kaliya loo sameeyay marka barnaamijyadaas kaleenta adiga hadaa fahansantaa luqado kaleenta daa website-yadan kaleenta Udemy-ga ka baran kartaa Coursera mid laha jirto oo saas marka mid walbana wuxuu leeyahay lacag iska $10 qaarkood $20 waa midba course walba lacag gooni leedahay markaas qofka uu ku dhigan karo marka laazim inaad dhiibtid waa iska free la raadinin waxaas hadaa jecesha markaas ninkaas oo waxaas ku soo gudbinayo asiin sidoo kale hadaa keeshid wuxuu ku soo gudbinayo laazim wax un markaas hadaa credit u tahay qofkii hadaa inaad garatid siisid oo si wixii u baratay leen midkan kale oo ku horjooga waa siinaysa oo qaab physical aan hadaa u tagta hadaa dhahno macda inta ka fura qolan ijaarna si qolan sameeyna waa dhiib leed macna sidaas un dadkan kale intana online naftirkiisa waqtiga qofka ugu baxo wax uu ku bixiya asin inaad dhiibtid wax u garatid wax u baratid wax bilaash ilaa ma jiro si fiican runtii arrinka jira ayaa ah in dadka si guud ahaaneed wax internetka ku jira hadduu yahay shay la gadanayo ama xitaa website ama waxay ahaadaanba haddii xitaa uu $1 yahay dadku waxaad moodaa waxa internetka ku jiro koorsooyinka ama waxyaabahaas la xiriiro in haddiiba waxaan ay lacag yihiin yani qofka uu ka noqonayo marka website-yada runtii Udemy oo kale waxaa ku jiro dhinac xataa filim samaynta oo kale rag Hollywood ka shaqayn jiray oo dadka barayo kale sida aflaamta loo sameeyo sida filimada documentary-ga loo sameeyo oo haddana $12 $10 $5 يعني website-yadan caalamiga wax isbaridda aan waxaan dhihi lahaa shakhsiyan waa fursad aad iyo aad u weyn Soomaalida iyo documentary-ga filimada documentary-ga waxaad moodaa in dhinacaasi markii loo fiiriyo aan eber ka nahay TV-yada kala duwan ee Soomaalida waxaa laga yaabaa inaad ku aragto ruwaayad hebel filim ay sameeyeen oo yani intooda badan ruwaayad shukaansi heblaaya hebel baranayso gabar baa la soo doonay dhinaca laakiin way yar tahay in aad aragto maanta qof Soomaaliya ama TV Soomaaliya soo deynayo film documentary ah oo yani tayo leh qiimo leh oo dadka dhinaca xadaarada meelaha caanka ee taariikhiga barayo inta badan tusaale ahaan dalka Suudaan oo kale waa dal Afrikaan ah wax badan aan wadaagno xitaa dhinaca warbaahinta Suudaan ma horumarsano laakiin saasoo tahay waxaad arkaysaa barnaamijyo badan oo wathaa'iqi ama documentary-gaas ah oo ka hadlayo xadaarada Suudaan waxay leedahay ahraamaad ka badan kuwa Masar ahraamaad aad u badan ayay leedahay marka dhalinyaro badan ayaa jirto xitaa TV-yada qaar way ka hadlaan halka Soomaalida inta badan ay dhinacaasba fiirinin waxaad meel walba ku arkaysaa ruwaayad ama majaajilo laakiin dhinaca documentary-ga iyo qaabka laakiin dhinaca documentary-ga waa ka eber ra'yigaad arkan ma la dhihi karaa wuxuu la xiriiraa in dhinaca thaqaafada iyo aqoonta aanan qiimo la siinin ama in ayna jirin qof isku mashquulinaya inuu documentary ka qoro sababta documentary-ga inta badan waa uun kitaab loo bedelay filim muuqaal ah marka mase arrinka wuxuu la xiriiraa ayaad isleedahay in dhinaca video editing oo kale ama wax soo saaridda productionka uu liito hadda yaqaan oo wadankiin horta zaid ugu jiriyeen dadkaas yaqaanan kaliya waxay raadiyaan badankooda ma dhihi karo qaaran dhihi karaa waxay raadiyaan viewer kaliya inay helaan arrimo kaleente oo laga roon yahay oo inay isku mashquuliyaan ama siyaasad inuu noqdo mid kale heeso isku mashquulina mid kale wuxuu isku mashquulina nin fadeexadiisa inuu soo gudbiyo arrimahaasna dib inoo dhigayaan marka midaas waa midda aniga naftarkeeda hadda aan ku dadaalayo inaan sameeyo website-kan sababaha u sameeyo oo afoogi ah taas waay oo ah inaan helno dhalinyaro fara badan oo tababaran oo arrimahaas u tababaran hadda halaala kala duwanaa niyadda laakiin dad badan haddaa aragtid oo wixii bartay qof un wuu kasoo dhexbaxaa oo barnaamijkaasi qaban karo
marka wixii aniga aan sameeya waxay tahay qaab nidaamsan academic ahna wixii aan u sameey Jupyter Unity wixii dhan aan sameey waxaan rabaa qofka asigoo nidaamsan inuu soo baxo si aad nidaamsan uu ugu furiyo filmaantan documentary soo saaritaankeeda iyo sidoo kale gudbinteeda waxyaabahaas waa sababaha markaasi kugu kalifayo hadda ardayga hadda kama dhigin hadda sida ardayga qof walba ay ugu fududaato inuu casharadii video editing dad badan saa u helno wax soo saar hadda qarashka kuma badan hadda waxyaabaha kaaga siyaab badan aan sameeyaa waxay tahay waxaan ka dhigay wixii dhan waxaan ka dhigay iska free waa qaab ahaantiis macnaa intaasoo course website-keeda ku jirto kulli waxaan dhahaa bishii hal lacag dhiibe course walba baran kartaa macnaa wax ka rakhisan ama qofka wax cun inuu bartaan rabaa inuu hadhoodii ummadiis wax u qabto oo waxyaabo fara badan inaan soo saarna waxa isbedelo aan YouTube-kii wixii aan buuxino meel walba Facebook-gii aan ku faafino waxyaabo wanaagsan oo aan soo saarno hadda haddii noqdaan waa ogahay waxaa dhici karta ama dad qaarkood waxaa dhici karta haddii soo gadaan website-keeda qaab inay u baranaan niyada kale inta wanaagsan hadda inay leeyihin laakiin ilaaha niyada og laakiin aniga kaliya waxaan rabaa dad badan haddaa wax bartid qof un 2 ama 3 kaaga soo dhacbixayso oo markaas sida wanaagsan u adeegsan doono waxa adeeg bartid marka midaas waa sababaha nagu kalifayso wax cun inaan soo saarno ama inaan juhdigii aan badino si fiican dhinaca si fiican dhinaca wax akhrinta kale wax badan ayaa laga hadlaa in wax la akhriyo in kutub badan la akhriyo xitaa barnaamijyada aan ka soo sheekeynay waxay leeyihiin qaybo badan oo nadari ahaan qofku u akhrisanayo marka hore way jiraan adaba dhinaca akhrinta adiga wax tijaabo ama leedahay oo aad soo martay qaabkaad wax u akhriso haddii ay nala wadaagayso waana wada ognahay waxyar aan kaa dhexgale waana ognahay in maanta haddaan nahay Soomaali qofkii raba inuu wax akhriyo ay qasab ku tahay in uu Carabiga ama English ka mid yaqaan ama luqad kale sababtoo ah xaaladdanada waan la soconnaa in ay yar yihiin inkastoo berihi u dambeeyey ay masha Allah soo yara badanayaan kutubta Soomaalida kutub ama buug af Soomaali ku qoran oo yani cilmi ama waxyaabo badan ka hadlayo si markii loo fiiriyo ma badno marka dhinaca wax akhrinta haddii aan su-aasha kuu sii daayo tijaabadaada iyo arrimahaas hor tijaabada dhankan haddaan ka hadlo akhrinta ahmiyad weyn ay leedahay qofka markaas hadduu rabo wax badan hadduu faa'iido laazim wax badan inaa akhrisid waay inkastoo anaga dhankeena Soomaalida ay nagu yartahay dhankan akhriska oo iska waxaan ku roonnahay dhankan oo iska daawashada ani badanaa marka waxyaabahan sameeyaa waxay tahay horta waxaan ku bixiyaa akhriska waqtiyada oo badanaa waxaan isticmaalaa ama adeegsadaa waqtiyada fasax aan leeyahay waxaan mararka qaarkood aan soo qaata waxay tahay buug ama 2 buug labada buug markaan soo qaato waxaan ku dadaalayaa marka page-kiyaan tiriyaa inta page markaas ay ka kooban tahay buugaas mararka qaarkood waxaan u tiriyaa chapterska markaas uu kooban ama unity-da markaas buugaas akhrin karo uu ka kooban yahay mar walba fasaxeedina marka haddii lacala bil fasax haddaan leeyahay ama 3 bil fasax ama 2 bil fasax haddaan leeyahay bilahaasan ku koobiyana waqti walow waqtigaas akhri safxadaas ilaa safxadaas sidaas aan isku programmeyna sidoo kale barnaamijyada jirto oo Google ay ku siinayso ama calendar markaas oo kugu sheegay waqtiga akhrinaysa markaas waqti walow ilaa waqtiga dhameynaysa kadib kasoo qaadadaan dhahno aan bisha koowaad aan akhriskii aan bilaabo waxaan isku base gareynaa laazim inaan wax cun aan sameeyo ilaa bishaan ay ka dhamaanayso ama bishaan dhexdeeda ama 17deeda ama 18deeda buugga inaan dhameeyo marka Google ya markaasi aan ku save gareynaa waqtigaas inaan dhameeyo marka badanaa marka wax akhrinaysid akhris kaliya ka noqonin laazim inaad qabsatid waxaa jirto warqad waxaa jirto qoraal jirto ama qalin jirto highlight aad ku sameyn kartid meelaha markaas ku muhiimka ah qalimaanta waxaan ka wadaa oo jaalaha iyo gaduudka ah markaas buugina aan ka haleenin oo kaliya bas ku calaameynaa meesha taa sidoo kale waxaa jirto warqado markaas stickerska markaas aad ku dhajin kartid ama aad soo kooban kartid waxa markaas aad ka faa'iiday ama macluumaadkaas ama page-kaas ama chapter-kii ama unit-kii dhan markuu dhamaaday waxyaabaha ka faa'iid waxyaabahaas badanaa sameyn kartaa si wixii markaas aad akhrisay oo kugu save gareysmato marka intaas kulli waxa ka sii horeysa laazim waxaan ku talin lahaa qofka duuro markaas inuu noqdo oo dhanka akhris oo iska hormari wax badan oo barto laazim luqadahan mid inuu barto waay sidoo kale Carabiga sidoo kale Englishka
iyo hadda luqadda markaas uu sareysa hadda la sheegi karo oo zaid dadka hadda u badan yahay Isbaanishka iyo Chinese-ka iyo Chinese-ka dad badan ku hadla hadda maadaama iyadana suuq leh Turkiyaanka naftarka hadda awood soo yeeshan weeyaan oo dhanka luqadooda iyo bixi iyo dhaxgalka markaas dadka marka badana luqad laazim waa luqad ha Soomaali kaliya ku ekaanin laazim ahmiyad weyn si luqadahan hadda mar walba wax aqris hadda luqadda ka seen hadda luqadaada sii horumarin kartaa waxyaabo fara badan baran kartaa mar walba hadda wixii aadan ka seen marka sidaas aan ku talin lahay hadda sameynaysid buug akhriski sidoo kale luqad barashadii waxyaabahaas un qofka inuu sameeyo ما شاء الله والله هرتو مدة اللوقدة ومهم آدي آد sababtoo ah saan sheegay Soomaali ahaan waa naqaan xaaladdanada in xaaladdan ku sugannahay burburkii iyo awalba annagoo tira ahaan aanan aad u badnayn ay yar tahay kutubta Soomaaliga ku qoran marka si aan waxyaabo badan ola jaan qaadno waa muhiim in aan baranno luqad kale sidoo Salmaan sheegay Shiinaha noqoto Spanish Arabi English luqad markii la leeyahay waa luqad ay dad badan ku hadlaan inta badan markii luqadan ay dad badan oo kala duwan ku hadlaan waxa badan waxa ay soo saarayaan kutubta ay soo saarayaan waxyaabaha ay alifayaan aad dadka Carabiga ku hadlo kale inta Carabiga u dhalataabo 300 milyan ka badan caalamkana waa kan English ku wada hadlo Shiineeskaasna waa tiradooda bilyan ka badan Isbaanishkana aad bay u badan yihiin waxa la nus bilyan inta afka Isbaanishka ku hadasho Latin America oo dhan markii Brazil laga soo tago af Isbaanishka ku hadlaan marka in qofku uu luqad kala barto waa muhiim Salmaan waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ama waxa isla 30 daqiiqo طبعا inuu ka batay su'aasha ugu dambaysa oo ah xiriirka alla u dhawaanshaha qofka dhalinyarada ah in uu Ilaahay tala saarto oona ahaanin qof maadi kaliya oona yani adduunkan uu fiirin dhinaca maadiga kaliya iyo tawfiiqdan in waxyaabahan uu samaynayo ilaa xad طبعا xiriir ayaa ka dhaxeeyo anada alxamdulillah dhalinyaro badan baan aqaanaa oo wanaagsan dhinaca wanaaga guula fiicanna gaari oo qofka dhinaca diiniyan markuu wanaagsan yahay marka koobaad waxaa ka ba'ayo kibirka iyo in uu dadka kala yaso marka arrinkan alla u dhawaanshaha iyo tawfiiqdan umurahan qofkan uu samaynayo waa la dhihi karaa xiriir ayaa ka dhaxeeya sidoo kale صح xiriir weyn ka dhaxeeyo waa aayadaha quraanka naftarkeeda ku sheegi doon ku sheegaysa ka soo qaad aayad ilaahay quraanka muxuu dhahay qul hal yastawi alladhina ya'lamuuna wal ladhina la ya'lamuun sidoo kale macnaha qofka dadka isku mid ma noqonayaan qofka badanaa markaa arkaysa inuu kibirkiis badan yahay badanaa hadaa arkaysa dadka kale inuu yasayo badanaa hadaa arkaysa wax xun inuu dadka kale xaqooda ama waxooda uu ku tuminayo qofkaas waxa waa macnaha qofaan wax xun inuu aakhiro ay dambeeso ama waxaas inuu shaki unu galinayo macnaha meel loo dambeeyo jirto dadka dhan ay kala duwanaanshaha oo dadka dhan ay wada sameeyeen marka badanaa mar walba Ilaahay ku xirantaa mar walba Ilaahay wax badan uu ku fududeeynayo sidoo kale maskaxdaada ma wasaqeysmayso hadda laakiin maskaxdaada kaliya waxyaabo oo munkaraad iyo wax si un hadii ku mashquulisid iyo waxyaabo far badan hadhood Ilaahay uu ka leexjina oo ilan maskax wasaqeysna meesha ku haysa markii barnaamijkii sheekadii qisada laakiin ma hubo inay jirto uu dhahay Imaam Shaafici Ahmed oo markii wax uu soo xifdiyay kadib wax dumar uu qoobkeeda u arkay maxay ahayd shakowta ilaa wakiicni soo xifdi meeno farshadani ila tarki macaasi macnaha ina wixii macsiyadu markaas jirto ina macsiyad ay ka tagtid sidoo kale aayada quraanka Ilaahay muxuu ku dhahay wattaqullaha wa yu'allimukumullah mar walba da Ilaahay cabsidiisa abadisid ku xirnaad middo kalena mar walba waxa sameynaysid wax walba sameynaysid u niyeeso wax wanaagsan ina Ilaahay dadka uu qabanaysid hadda ka soo qaad video editing aan rabaa inaan barto maskaxdaada ka soo qaad maskaxdaada waxa gelis video editing aan rabaa inaan barto marka koowaad maskaxdaada geli wax una rabo markaas inaan ku toosiyo bulshadii aan rabaa wax inaan ku wacyi geliyo ama bulshadii aan rabaa markaas inaan wax u gudbiyo ama muxaadaraad aan rabaa inaan soo qaado wixii aan sameey oo aan sameey aan jarjar dadka inaan u gudbiyo rabaa laakiin haddii maskaxdaada ay tahay
keliya hees hebelo aan samayn karaa ama wax munkar hebelo aan saa faafina ama qof aan fadeexad ka sameyna aan sii faafina maskaxdaada saas ku saafgaraysan tahay weligaad horumar weyn ma gaarays midaas mida ani dad badan aan arkaya oo markhaata unahay waa marka ma aan waxa iska dheen marka badanaa ilaahay ku xirnaasho wax walba aad samaynaysid ilaahay ku xirnaashaa marka koowaad ka dhig oo ilaahay dartiis u samee waxaas ilaahay markaas uu kugu caawina ana midaasaan ku talin lahaa mar qof walba niyadda ha wanaajiyo ikhlaas ha ka dhigo wax walbana wadankaada iyo ummadaada iyo diintaada u samee kadib wax una markaas aniga waxyaabaha hadda magaalada dhan naga jirto wax walba horumarkii wixii gadaal ugu dhicin sidaas waa nin walba wuxuu markaas uu sameynaa masaalix kale gooniyu ka leeyahay taas marka inaan ku dadaalna waay midaasaan dhihi lahaa ani ahaan ما شاء الله aad baad mahadsan tahay waxay ahayd xalaqo aad iyo aad u wanaagsan cumqi leh runtii aniga shakhsiyan waxyaabo badan aan ka faa'iiday runtii waqtigaada qaaliga ah waan kaaga mahadcelinayaa inaad nagala qayb qaadatay xalaqadii ugu horeysay ee somcast waxaan rajeynayaa insha allah in xalaqaadka soo socda sidoo kale ay mujtamacu wax uu ka faa'iidi doono aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kanaalka Ustaad Salmaanna linkiga ugu horeeyo ama meesha commentiga ugu horeeyo ayaan soo dhigay haddaad intaan soo gaartay waan wax ka dhiganta inaad si fiican ula socotay xalaqadan inta aan xalaqa noocan oo kale isku arkayno podcastigan somcastigan waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo laakiin waxaa noo sii socon doona barnaamijyadii kale ee aan kanaalka kusoo gudbin jirnay